haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galbaarista oo uu inoo soo diyaariyey soona jeedin doono haruun macruuf. soomaaliya waxay gashay qalalaasa siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku salaysan kala aragti duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda waddanka. sidaasi waxaa qaba siyaasiyiin iyo sharci yaqaano. 9kii bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay ayaa ra'iisul wasaare xasan cali khayre kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada uu ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho wakhtigeeda ku dhacda. waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeedho ra'iisul wasaaraha, kaasi oo muujinaya kala aragti duwanaansho u dhaxaysa isaga iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. shirka golaha wasiirada maanta waxaa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogtaha uga shaqeeyaan dardargelinta fududaynta ka shaqaynta sidii ay ku dhici lahayd doorasho ummadda Soomaaliyeed ay isla ogoshahay. waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoonto. sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin. hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne farmaajo. jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed, iyadoo isla maalintaas uu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay ra'iisul wasaaraha, wuxuuna sheegay inuu soo dhoweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay wakhtigeeda ku qabsoonto. wuxuu intaas ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu 2 qodob oo ahaa in awoodda loo dhoweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin, lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha. hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyey markii la isugu tegey magaalada Dhuusamareeb. isagoo hadlayay 22kii Juulaayna waxa uu yidhi sidan: maalintii la doortay ilaa maanta waxaan ku haynaa shacabka, xiriirka shacabka iyo dawladda waa in la xoojiyo, waa in awoodda shacabka lagu celiyo, waa in shacabku ay yihiin sovereign, dadka dawladnimada iska leh oo dalka iska leh yaa ku wareegay, oo shacabku waa kicin laabtoodii waa kicin. waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdama wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray. markii la isugu tegay magaalada Dhuusamareeb, khubaro kala duwan waxay filayeen in ra'iisul wasaare khayre uu aad u sii caddayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado. ha caddeeyo mowqifkiisa ama yuusan caddaynine waxay u muuqatay madaxweyne farmaajo inuu ogaa mowqifka ra'iisul wasaaraha. 25kii Juulaay baarlamaanka Soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo dawladdiisii, waxayna ku codeeyeen inay ridaan. daqiiqada uun kadib tallaabadii uu baarlamaanku qaaday, madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub. isla maalintaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada Dhuusamareeb, waxaana uu cambaareeyey qaabka loo maray xilka qaadistiisa. waxaase uu sheegay inuu go'aansaday inuu iscasilo. xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyey in ra'iisul wasaare khayre codka kalsoonida lagala laabto. annagu dee muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku tumasho iyo ogolaansho yani waxqabad xumo ayaan muddoba la soo taagnayn oon ku eedeynaynay. marnaba iskama aanaan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda markaa fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii u muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xallin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda. waxaad ka warhaysaa qodobo dastuuriga oo waaweyn ba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibistii qalbi dhagax, oo ay ka mid ahaayeen weerarkii cabdiraxmaan cabshakuur, oo ay ka mid ahaayeen jawaari iyo arrimo kaloo aad u tiro badan oon diidanayn oon maalin walba ka hadlayna. waxaa ka mid ah habka nidaamka federaalka loola macaamilayo iyo dowlad goboleedyada. waxaad ka waraysaa haruuno annagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qayb muhiim ay ku leeyihiin, madaxweynuhu ha la fariisto. dee waxaad ka waraysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyadii shaqada uu ka qabtay Jubbaland uu 2 u kala jaray almost gado iyo intii kale koonfur galbeed iyo galmudug shaqadii ay ka qabteen waad ogtahay. dee nimankaanu niman isla jirkoodu waddanka halis ku ahaa buu ahaa. marka dee annaga kalsooni markii horeba iskuma aanaan qabin annaga xukuumaddu, laakiin hadda riditaanka xukuumadda ma aanan sponsor garayn. mooshinaan annaga ka keennana kuma aysan dhicin.
laakiin sida muuqata madaxtooyada pressure ka yimid ee guddoonka baarlamaanka soo maray baa uu ku dhacay laakiin haddii nala ka waraysto inuu dhaco raalli baan ka ahayn iyo nus. haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyayaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra-iisul wasaaraha aan loo marin sharci, gaar ahaan qodobka 54 ee xeer hoosaadka baarlamaanka oo dhigaya in doodda kalsooni kala noqoshada ay furanto 5 maalmood ka hor intaan codka la qaadin, islamarkaana ra-iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo waqti uu isku difaaco. tallaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga ah waxay dhacday 30kii bishii Julaay ee aynu soo dhaafnay, markaasi oo golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen 5 xubnood oo ka mid noqonaya 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka. dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah. maxkamaddaasi oo awood u leh inay qaado qodob kasta oo dastuuri ah oo laysku qabto. inta aynaan haddaba u gudbin maxkamadda dastuuriga ah iyo saamaynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan, bal aan eegno waxa uu yahay golaha adeega garsoorku. Ibraahim Iidle Sulaymaan waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya. golaha adeega garsoorku marka la leeyahay ama laga hadlayo mabda'a xagga dawladnimada ee leeyahay kala qaybsanaanta awoodaha, marka waaxda garsoorka cidda maamulaysa ee u sarreysa waa golaha leeyahay golaha adeega garsoorka, waa baarlamaanka garsoorka, sida golaha wasiirada kale uu yahay baarlamaanka ama boardkii ugu sarreeyay ee wasaaradaha ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamulaysa maxay garsoorkii. sidee ayaa haddaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka? 9 xubnood waxay kala imanayaan, 3 waxa ay ka imanayaan waxa la beesha hay'adda lehdo amaba bulshada rayidka ayaa laga soo xulaya. waxaan soo jeedinaya golaha wasiirada, waxaana horgeynaya baarlamaanka ra'iisul wasaaraha ayaa horgeynaya. 2 waxa soo magacaabaya ururka qareennada Soomaaliyeed baa soo magacaabaya. 5 marka laga tago 4 kale xafiisyo ku imanaya oo xeeraryaha guud iyo gudoomiyaha maxkamadda sare, gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka oo aan weli la dhisin, marka la dhiso gudoomiyaheeda ayaa isna xubin ka noqon doona. maxkamadda dastuuriga oo iyana aan la dhisin ayaa isna gudoomiyaheeda xubin ka noqonaya. marka 4 xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka marka xafiiska jooga ku doonaba ha ahaadee ayaa soo fariisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid ah. ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah? waa kan garyaqaan Ibraahim Iidle Sulaymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare. horta haddii xukuumadda dhacdo waxaa ka dhalanaya waxyaalo fara badan baa sharci ahaan ka dhalanaya, oo waxaa ka dhalanaya siyaasaddii xukuumaddu markaa hore ku shaqaynaysay meesha inay ka baxdo oo ay lunto. waayo siyaasaddu waa waxa isku xidhayay ama barnaamijka xukuumadda waxa isku xidhayay xukuumadda iyo golaha shacabka, barnaamijka isku xidhayay, barnaamijka meesha baa ka baxaya. taas waa qodob. xukuumadda markii hore waxay ahayd xukuumad rasmiya oo dabeecaddeedu ay tahay bermalan ay tahay ayay ahayd. taasina meesha ka baxaysaa iminka dabeecaddeedu ma aha xukuumad rasmiya maaha, waa xukuumad ka meel gaara. laakiin waxay shaqaynaya kaliya waa maxay? waa hawlaha la yidhaahdo hawl maalmeedka ayay fulinaysaa xukuumadda. marka iyagu mana samayn karaan oo awoodoodu ma aha, ma gaarsiisna in ay soo saaraan go'aamo ay waajib tahay xukuumadda ka dambaysa inay fuliyaan, amaba go'aamada ayay iminka soo saaraan kuma khasbana xukuumadda kale waxba kuma waajibin karaan. sababtan waxay ugu waajibin karina waa maxay? waxaana haysan kalsoonidii baarlamaanka. qodob dastuuriya ama habraac kale ama xeer hoosaad u diidaya xukuumaddan hadda sii hayaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa u diidaya inaysan ansixin karin qodobka golaha adeeg garsoorka miyaa jira? horta sharcigu waxa weeyaan waa awood weeyaan, awoodda sharciga bixiya. su-aashu waxay tahay ma aha wax u diidaya ma jiraan, laakiin waxa weeyaan ma jira qodob sharci awood siinaya. yaa sababtu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamayaa inay xukuumaddu sii haynayso ay hawl maalmeedkii sii wadayso, hawlihii sii wadayso inta xukuumadda kale la sameynayo. sidaa darteed xukuumadda tan fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay? in ay tahay maxay xukuumad ku meel gaara. sidaa darteed waa in iyaga laga rabaa xujada waa maxay? waa cidda leh awooddan waan leeyahay baa xujada laga rabaa. laakiin xujadu ma aha yaa u diidaya, waxa weeyaan yaa awood siinaya. qodobkee baa awood siinaya? qodob dastuuriyaba maxeerba waxa weeye way jirtaa cid meel awoodda bixinaysa. awooddu kuma timaado yacni xafiiska cidda joogta, laakiin awooddu waxay ku timaadaa maxay? waxa sharcigu bixiyey. xisbiyada mucaaradku waxay ka soo horjeesteen ansixintii xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilka sii haysa. sidoo kale xildhibaanadii kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare Khayre waxay qaarkood dhaliileen tallaabada ay qaaday xukuumadda xilka sii haysa. xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa: xukuumaddan hadda horta waa xukuumad xilgaarsiin, ma haysato kalsooni baarlamaan.
maadaama aysan haysanin kalsooni baarlamaan wax go'aano ah oo ka badan in nolol maalmeedka dowladnimada la wado oo qaadan karto ma jirto laakiin waxay qayb ka tahay tacdiyaadka dastuuriga ah oo hore u soo sheegnay golo ma ahan hadda waa ku sibayaal hadda sidii golay u shiraan go'aano golay soo saaraan waxyaabaha cajiibka waxa ka mid ah guddiga adeega garsoorka oo ah guddi dastuuriga oo 3 sano barkii la soo dhaafay madaxweynaha laga sugayay ay maalin dhaweed soo sameeyeen dabcan waxaas oo dhan waxay baal marsan yihiin dastuurka shirkooduna wax ka soo qaad male go'aamadooduna wax ka soo qaad male maxaa haddaba la yeelayaa haddii ay dhacdo muddo kordhin uu sameeyo aqalka baarlamaanka taasina ay ka hor yimaadaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo iyagu qoraal ku sheegay in doorashadu wakhtigeeda ay ku dhacdo dhinaca kale muxuu noqonayaa doorka maxkamadda dastuuriga ah brofesor afyare cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda qatar waxa uu si dhow ula socday qalalaasaha siyaasadeed dad kale oo yaqaana arrimaha dastuuriga waxay leeyihiin arrimahan haddii uu dhaco muran dastuuri ama qalalaasa dhinaca dastuurka oo ku saabsan muddo kororsi ama xilliga ay dhacayso doorashadu in hay-addii ka gaari lahayd go-aanka ay tahay maxkamadda dastuuriga ahayd oo aan dhisnayn laakiin tallaabo ay qaadeen golaha wasiirada oo lagu dhisay lagu magacaabay xubno ka tirsan golihii adeega garsoorka ayaa dad badan dareen gelisay maxaad ka akhrisatay adigu arrintaas waxaan ka mid ahay dadka dareenka ay gelisay waayo waxaa muuqatay in horta dee xukuumad oo dhacday oo ayada laftirkeedu inay mandate haysato in kale aynan doodba lahaynba inay arrin saa u adag anigu dee intaan ka fahamsanahay maybe tanina waxaa laga yaabaa inay tahay yani fasiraad laakiin intaan ka fahamsanahay xukuumaddu markay dhacdo wixii daily activitiesa oo hore u jiray inay sii wado mooyaane yani waxyaalo cusub oo waaweyn inay curiso oo ay la timaado horta dee laguma aqoonin dhaqanada lagu yaqaano ah ma ahayn ta labaad waxa waaye waxaa kasoo muuqanaysa in la rabo in ama dad badan ay u fahmeen oo anigu aan ka mid ahay in la siyaasadaynayo hay-addii cadaaladda oo markaa la samaynayo hab dad oo yani maxkamad oo aanan ahayn maxkamad ku shaqaysa sharci laakiin ku shaqaysa ciidda meesha keensatay in la rabo in la keeno meesha marka arrintaas ayadaa sida loo abbaaray iyo cidda samaysayba waxaa ka imaaday muran sharciga oo weynaa ka taagan anugu shakhsiyan ma qabo in waddadaas lagu abbaaro ansixinta golaha adeega garsoorka cayrintii ra-iisul wasaare khayre iyo doorashada oo aan wakhtigeeda ku qabsoomin intuba waxay la xiriiraan dastuurka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca sharciga khubaradu waxay kaloo ku doodayaan in maxkamadda dastuuriga ah ay xataa dhagaysan karto dacwadda ku saabsan xilliga doorashadu ay qabsoomayso mar kale waa kan garyaqaan ibraahim iidle sulaymaan xilli doorashadeedku waa dastuuri waa arrin dastuuri qodob dastuuriya baa tilmaamay oo xilli doorashadeedku waa caynka iyo caynka waa qodob marka xilli doorashadeedku in uu dhaafi karo xilligiisa iyo inaanu dhaafi karin waa arrin dastuuriya maxkamadda dastuuriga ka jawaabaysa oo waa qodob dastuuriya xag kale haddaad ka eegto qofka muwaadinka xaq wuxuu leeyahay inuu muddo xileed waxa la siiyey muddo yani doorashadu waa xaq dastuuriya oo qofku leeyahay inuu wax dooran karo lana dooran karo qofku wuxuu odhan karaa oo maxkamadda dastuuriga horgeyn karaa waxaan u baahanahay xaqaygii dastuuriga ahaa ee dastuurka ii ballan qaaday 4 sanoba inaan mar isticmaalo mar xaqaygu u baahanahay sidaa darteed waxaan maxkamadda sare dastuur ka codsanaya in ay soo saarto xukun ku waajibinaya ama go-aan ku waajibinaya xukuumadda dhexe inay doorashada xilligeedii qabato marka maxkamadda sare dastuurigii hataa waxay ka go-aan gaaraysaa oo sharcigu tilmaamaya yani ka sokow inay waajibin karto natiijada kasoo baxda ayay ka go-aan gaaraysaa marka maxkamadda dastuuriga muddo kordhin ma samayn kartaa maxkamadda dastuuriga ee shaqadeedu waxa weeye in ay ka go-aan gaadho amaba inay fasirto qodob dastuuriya fahamkiisa iyo sharcigiisa go-aan soo baxay inuu dastuurka waafaqsanya inaan waafaqsanayn tallaabo baarlamaanku qaado inuu dastuurka waafaqsanya inaan waafaqsanayn tallaabo xukuumadda qaado inuu dastuurka waafaqsanya inaan waafaqsanayn in tafsiir sharci oo la weydiiyo laakiin iyadu go-aan ay iska soo saari karto oo ah maxay muddadaasaa la kordhiyey maya waxay ka go-aan gaari kartaa go-aan ka yimid baarlamaanka oo ah muddo kordhin baanu samayn dastuurinimadiisa يعني محكمة السر الدستورية محكمة الدستورية waxa weeye waa dastuurkiyo shaqeynaya waxa la yiraahdaa madaxweynayaasha iyo waxa had iyo goolaalo waxa la yiraahdaa waxay yiraahdaan madaxweynayaasha waxa ilaaliyaha dastuurka waxa weeye waa maxkamadda sare dastuuriga
galka baaristu waxa uu la xiriiray guddoonka baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee dhinacyadaasi weli kama soo jawaabin codsigii aan u gudbinay. mahadsanid Haruun Macruuf.